Assalaamu calaykum. Maanta muuqaalkan waxaynu kula wadaagayaa qisada Pinkerton. Magacaygu waa Cabdulrahmaan Jaarig. Soo dhawaada. Pinkerton waa dhakhtar, qoraa, dhiirigeliye iyo siyaasi. Pinkerton waxa uu ka dhashay qoys Afrikaan Amerikaan ah. Waxa uu dhashay gugii 1951. Waxa uu ku dhashay magaalo la dhaho Detroit ee gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka. Pinkerton wuxuu ahaa dhakhtar ku takhasusay qalliinka maskaxda iyo wadnaha. Pinkerton waa shakhsiga ugu horreeyay ee laba qof oo madaxa iskaga dhagan kala fujiyay. Waxa uu ku guuleystay Pinkerton 300 oo qalliin iskugu jira wadnaha iyo maskaxda. Haddaba sidee ayuu ahaa Pinkerton intuunan guulahan xaqiijin? Pinkerton waxay labadiisa waalid kala tageen isagoo ah 8 jir. Pinkerton wuxuu yidhi, marka aan yaraa aad ayay igu adkayd inaan sugo aabbahay, waxaana u fariisan jiray guriga hortiisa. Pinkerton wuxuu dhahay, waxaan ahaa mid dhibaato dhaqaale ee hayso. Hooyadayna waxay ahayd mid labada gelinba shaqaysa say u daboosho masaariiftayada. Waa Pin hooyadiisa. Pin wuxuu ahaa mid waxbarashadu ku adag tahay marka uu yaraa, ilaa fasalka ugu naanaysay damiinka fasalka. Waa cajiib. Pinkerton wuxuu yidhi, inkastoo tilmaamtaas ay ardaydu ii bixiyeen aanan jeclaysan jirin, misna kama dagaaltami jirin arrintaas, waayo waxaan ku buriyo waa damiinnimada ma ahayn. Waxaan ahaa ardayga ugu hooseeya galaaska dhanka darajada. Maalin ayaa macallimadda iskoolka waxa ay noo qaybisay imtixaankadiisa. Markay ardaydii su'aalihii dhammeeyeen ayay bilaabeen inay warqadaha isdhaafsadaan si mid kasta waxa ka dhiman kan kale uga buuxsado. Kadib macallimaddii ayaa bilowday inay darajada ardayda weydiiso mid kasta wuxuu uu keenay. Markii la soo gaaray Pinkerton ayaa macallimaddu waxay tiri, Pinkertonow maxaad keentay? Wuxuu yidhi, anoo codka aad u jiidayo hoosna u dhigaya ayaan waxaan ka idhi 9. waxa aan keenay 9. Macallimaddii ayaa dhahday, si fiican weeye Pinkertonow. Gabadh dhegiisa fadhiday ayaa fiirisay warqadda Pinkerton, waxayna macallimaddu u sheegtay inaanan keenin 9. waxayna ay tiri, well, not 9. He didn't write. Ma keenin 9. wax jawaabana kama jawaabin. Pinkerton wuxuu dhahay, guusha aan gaaray waxa u sabab ahayd hooyaday. Waxay ahayd markasta mid iga ilaalisa waxyaabaha maalayacniga. Waxay iga mamnuucday wax kasta oo aqoontayda hoos u dhigaya. Waxay igula talin jirtay akhriska ilaa aan horumarkan ka soo gaaray. Waxa aan gadaal ka ogaaday hooyaday iyadoo saa ii garab taagan inayna hooyaday wax qori karin, ayna waxba qori jirin, laakiin akhriska wax akhrin jirtay. Haddaba maxaynu ka qaadanaynaa asxaabay qisadan Pinkerton? waxaad nagula wadaagaysaan xagga hoose ee kommentiga. waad ku mahadsantihiin. Fadlan subscribe-ka, like iyo share-ka waa muhiim.